marka controlkii istaagnay darawalkii degay wuxuu u tagay askarigi wuxuu bixiyay amar ah leerka dhaxal shido marka anagu magacaabo wuxuu engineer leerka dhaxal bulshadeen fiirshay waxa baan in gadaalkiiga fadhiya oo kursiga ugu beegan fadhiya taliyihii xisbada ugunji shabaabku markii ay dadka haayaan oo ay dacwo qaadayaan ama ay sakawada ka qaadayaan wax baan ku sameeyeen waxay fariisiyaan faylal dheer oo carisho marka dhala weyn oo LGO waaweyn mitir ah u taala waxay ka soo daayaan dacayadka oo dawladda ay ku ridinayaan mas'uuliyiinta dawladda madaxweynayaasha siyaasiyiinta dadka nuxurka u leh waxyaabaas ka soo daayaan madaxweynaha koobaad oo ay maanta dadka u shidayaan oo ridinayaan oo 10 ka magac u baxayaan murtad salami daaqood gaal waxaas ay akhrinayaan madaxweynaha koobaad Xasan Sheekh Maxamed saraakiisha ciidanka ee maanta nool oo ay soo daayaan waxa kamid ah gacmo dulle waxa kamid ah ninka la tuur yare kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka tixanaha oo ah maalmahan ee ku saabsanaa kiiska injineer Faarax Cabdinaasir Cabdulle ee ku saabsan hay'adaha garsoorka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo al-shabaab waana gabagabada qaybtii ugu dambeysay oo qaybtan waxaan su'aal uga weydiinaynaa xogaha uu ka soo baaray iyo sidoo kale nidaamka u shaqeeyaan kooxda al-shabaab maadaama sanad ka badan uu ku noolaa deegaan ay gacanta ku hayaan al-shabaab ganacsiga hanaanka amni ee deegaanka iyo dhan walba oo maamulka deegaanka ah haddaba ku soo dhawaada qaybtii ugu dambeysay oo qayb saddexaad muddadii aad u xirneed shabaab ee aad ku sugnayd gobolka Shabeellada Dhexe iyo guud ahaan intii tacaamulka aad la sameeysay kooxda ee xukunkooda uu socday iyo maxkamadeynta bal ka waran maxaad ka soo aragtay dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin ee aad xukun tagtay neehow taas sadaan ka warramo horta shabaabku si ahaan markii loo fiiriyo waa dad daciif laakiin waxay ku shaqeystaan in ka faa'iideystaan awoodo shacab oo ilaa 5 qaybood ah aniga xaqiiqiyan halkii sano iyo 2 biloodan gacantooda ku jiray waxaan noodgareeyay oo aan arooriyay qaabka dadka la shaqeeya waxa ay yihiin bulshada dabaqadaha ay ugu jiraan waxyaabaha ay ka saacidaan shabaabka siyaabaha dadka anigoo kala ah oo diidan in la tacaamulaan oo dacwadahooda ka soo horjeedo lidka ku ah siday u qabtaan meelaha ay marayaan wadooyinka loo maro marka ilaa 5 qaybood oo bulshada kamid ah ayaa la shaqeysay nimankaas una fududeysa wax walba u baahan helaan team gaadiidley ah oo fududeeya meesha qofkii shacabkii waa kan intay joogan shacabkii intay joogan dhul u dhaxeeya dhulkaas wadooyina mara gaadiidleyda waxay fududeeyaan inay dadka ku qanciyaan inay meesha cadaalad taalo maxkamad shariicada islaamka lagu naqaataalo teamka gaadiidleyda shaqada noocaas qabtaan adeegyada fududna u qaadan shacabka xitaa haddii amiir shabaab u baahdo inuu magaalada Muqdisho ka soo danaysto ayaa soo qaada marka team gaadiidley ah waa la shaqeeyaan odayaal laba heerna waa la shaqeeyaan odayaasha laba heer ayaga soo magacaabo qabiil walba ee Soomaaliyeed oday u soo magacaabaan maafiya odagaas ay soo magacaabaan wuxuu sii magacaabaa mid walba jufada qabiilkii Soomaaliyeed uu ku sujiya inta jufay wax u qaybsato ayuu wuxuu u sii magacaabaa odayaal suldaamo ah asaga tusaale waxa la yiraahdaa qofka ay magacaabaan naqiibay dhahaan ama ugaas wuxuu magacaabaa marka suldaan wax la yiraahdaa dabcan criteria jirta oo ay ku xushaan naqiibkuna criteria jirta oo suldaanka ku xusho darawaleenta sidoo kale qof walba iska ma aqbalaan aduu saaka inta gaari soo gadatid oo dad raratid ma teen kartid waa nidaam jira tashkiil jira wado waxa jirta oo ayaga darawalku kula shaqeeyo kaliya sidoo kale waxa la shaqeeya nootayooyin oo maanta qandaraas walba ee Muqdisho lagu galo ama dhul la kala iibiyo heshiis walba suuqley oo suuqa lagu qoro sabab waxa uu gudbiya nootayo nootayadu shaqooyin kale qabta waxa kamid ah dacwadaha dhulka shabaabku maadaama yihiin niman jamhada oo doorka ku jira oo maafiya wax xigmad dhul ah lahayn go'aamada dhulalka waxa dabaqa oo gaar nootayooyinka ayagoo maraa injineerada gobolka iyo dadka aqoonta u leh dhulka kuwaas dabaqa sidoo kale waxa la shaqeeyay ganacsato oo laba heer ganacsatada xoolaha nool iyo
iyo ganacsatada dalagga beeraha ka soo go'a marka labada tiim la shaqeysa saddexdaas waxa la shaqeysa shanta tiim la shaqeysa marka haddaan sida aan u fahmay ama tiim walba u guda galo on ka bilaabo dhinaca odayaasha odaga koobaad oo ay magacaabaan tusaale qof walba shabaab ma magacaabayo odagaas gobolka banaadir waa liiwliya awood ahaan waxay u diyaareen inuu u dhigmo gudoomiyaha gobolka tusaale madaalo kale inuu u dhigmo gobolka banaadir waa liiga gobolka banaadir waa nin la yiraahdo Muuse Carraale waa lika Muuse Carraale wuxuu soo magacaabaa odayaasha noocaana oo naqiibyada qabiilaadka odagaas naqiibka ah waxay ku xulayaan inuu mabdi'iyan shabaabka ku mabda'iya qofkaas oo kale qof walba Soomaali ah ama qof walba Soomaali ka talisa maya waa inuu shabaabku mabda'iyahay qof dadka la shaqeeya dad fiiridana qof walba oo naqiib oo shabaabka la shaqeeya taariikh nabadoonnimo ama history samar ka talis malaha waa dadka bulshada aqli badanayaasha la yiraahdo iska maafiyada ah dadkaasi xushaan naqiibay ka soo dhigaan kaasuna wuxuu sii xulanaa mid asaga ka sii hooseeya midkaas asaga ka sii hooseeya marka intaan gaaraha naqiibka intaan aan ka dhamaado naqiibka oo kale maadaama uu yahay xubin ka tirsan gobolka oo laga magacaabo gobolka markaas oo doow shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir oo kale aan ka warbixi karaa naqiibkaas gobolka banaadir waa xukun mid yahay golaha ama guddiga shuurada ee gobolka banaadir oo Muuse Carraale kala xukumo wuxuu qabtaa shaqooyinkiisa kamid ah qof walba oo qabiilkiisa kamid ah oo dacwo ama loo haysto ama maaliyada ka rabeen si ahaan waxa iska soo horjeeda meesha dacwadii meesha maaliyada qof uusan asagu dabiinan oo qabiilkiisa kamid ah ma bixi karo waa xubin golo deegaan ama gobolka markaas laga magacaabay waa qofka kaliya oo dabiinan karo qofka qabiilkiisa ah waana qofka kaliya iska leh go'aanka u dambeeya oo ah xukunka qofkan ku fuliya ama ku fulmiya saddexdaas shaqo leeyahay ninka marka suldaanka oo ka hor shaqeeya waa ninkaas qofka bulshada ugu khatarta badan sababta kaas kan uu ka shaqo baday kaas waxa lagu xushaa dhowr sharbood horta koow inuu wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ka haysta kaarka waddanka oo control walba dawladdu mari karo wax walba dawladnimada ka dhex gala shabaabka inuu dooni karo daba kici karo inuu gabaad ka dhiga karo kaarkaas kaarka wasaaradda arrimaha gudaha oo waddanada waa inuu haystaa shaqooyinka qodob marka waxa kamid ah tusaale ganacsatada qabiilkiisa waa report gareeha inta ganacsatada qabiilkiisa uu leeyahay oo xarun ganacsi ah oo report gareena oo gudbaa qof walba naqiibku iskama ka dabinaayo qof walba oo qabiilka kamid ah inuu naqiibku dabinto waxa sabab ah oo gudbinaa suldaankuna iyo ku xidhaa tusaale aniga waxay dabintay aabahay waxa sii dabinta nabadoonka beesheedana waxa sii dabinta suldaankana waxa dabinta naqiibka kadib adabada lagu sameeyaa intaas oo qof marka waxa isku soo xiraa ninka gacan yaraha ah oo suldaanka ah qof walba oo qabiilka kamid ah oo shabaabnimo u xiran kana qaabilsan inuu soo daayo asagoo maraa saraakiisha ciidanka siyaasiyiinta maadaama wadaanin uu yahay kaar dawladda haysto oo nabadoon oo damaanad dawladdu ka yeeliyo dawladduna malaa'ig ma wax walba ma ogaa karto ninka suldaankan shaqo qabta nootayadu ama ha handadnaato ama fikriyaan hala shaqeydo waxay gudbisaa qandaraasyada kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad macnaha guri qof meel kaliis meel lagu dhisaa uma badna shabaabkuna soo wacaan laakiin markii guriyuhu ay yihiin state ama filooyin ama dabaqyo ama mashruuc markii state yihiin way soo wacayaan marka ay project iyo dhowr koob dabaqna soo wacayaan hadduu mashruuc yahay iska wadaaf marka labadaas heer oo state-ka iyo mashruuca wixii u dhaxeeya ay gudbiyaan sidoo kale waxay gudbiyaan boos walba ee maanta la kala iibiyo gooflaha iska wareejiyay iyo milkiilaha la wareegay inta
si shabaabku ay dadkaas u canshuuraan shaqooyinka kale oo cajiibka ah oo ay qabtaan waxaa ka mid ah maantay haddaan suuqa tago ee aan business meel ka jira share ku darsado cadadka lacagtaan ku darsaday maadaama nootayooyin kala qorayaan heshiisyada sheerarka sida faa'iido wadaagga loo yahay lafaha la isku darsaday cadadkooda shabaab maanta haddaan 10,000 oo doolar qaatay dukaan ku darsado jaa waxay ogaanayaan lacagta cadadka aan leeyahay dukaan ku darsaday sakawaadka qabanahay qorsheynayaan faa'iido soo wadaagga waxa soo saarkani saas kula socdaan xogtaas kala gudbiyaan tusaale waxay kala gudbiyaan markii dacwo dhul ay shabaabka dacwo dhul ka jirto dacwadaas dhulka lama dabaqo ilaa ma nootayooyinka muqdisho ku yaala laba kamid ah ma wada 3 ma aan 4 ma laba kamid ah ilaa ma ay go'aan ka soo gaaraan qof walba dacwo dhul u jooga waxay leeyihiin nootay hebel taga dhulka saxda asaga noo soo sheega bas nootayinka safay lagu jiraa nootayinka waxay fududeynayaan inay injineerada dhulka u yeeraan geometriska ay dhahaan haye dhulka go'aan ka gaaraan dhulkaas ay go'aan ka gaaraan warqadaas go'aanka loo soo gudbiyo nootayada ay ku dhahdo halkaas u qorto marka shaqadaas yaa wada mar kale odayaashii yaa wada labadan qof is dacweynayeen labadoodii oday oo u sameysteen garbaha soo qabeen nootayada ayaga keenaa hadhowna ayaga qaadaa shabaabka marka waxay ku fuliyaal bas go'aanka dhulka dabaqaadiisa nootayada iskale waxyaabaha sidoo kale ee odayaashu fudeeyaan bulshadana shabaabka ka dhex isticmaalaa waxa kamid ah xukunada dhaxalka kale xukunka dhaxalka haduu gaaro farac oo aniga dhaafo wiilkaygu abay dhaxlaa ma xiriiriyaan dad ahkaamleyda oo fiqiga dabaqo magaalada muqdisho jooga ay u baahan yihiin waa loo yahay waa ka soo horjeedaan kuwaas si marka ay wadaadkan aqoontiisa u helaan mar kale odayga isticmaalayaan odayaashu waxay sameynayaan culimadii keenayaan waxaan u bandhigayaan shuurada go'aankii ka qorayaan xukunkii ka qorayaan waa geynayaan marka la fulayaan marka niyo ballaaran yihiin waxyaabaha oo shabaabka aragtay dhinaca darwaleenta oo kale shaqa halis waa darawalkaasu wuxuu qaadaa waxyaabaha fudud sida caafida timirta iyo waxyaabaha daawada sidoo kale markay rabaan amiirada ama madaxda shabaabku inay magaalada soo nasiina tagaan darawaleenta soo qaaday tusaale aniga hadda ka hor waxa laga qaaday habeen madow mar caaniga laga xanuunsanay iyo soo galadeen fasax 9 saac habeenna waxa laga qaaday meeshii xaafadida deganaa gaariga marka aniga kursiga koobaad fadhiyaa xilli dambe waayay iska hurdoonay ceelasha biyaha ayaa gaariga waxa hagaa qof oo leeyahay meelbelan ka soo maraa ee halkaas soo istaag wadada imaw qofkii gaariga u galay wada qof socdaan hor yimid kursiga dambe fariistay anoo kuma mashquulin markii dawladda waqol la socdanay control dawladda la maraa oo control dawladda la maraa oo wada qof iska muqdisho ugunji open ma 17 control taal wadada jaaga hadii la marana 7 control taal tan hadii la maro afgooyina 10 taal marka buundayari meelira oo 99% ay maraan baabuurta shabaabka u socota maadaama habeenimo ka baxan macna xamar waxay ku tukadaan salaad subaxiga meelira Umar Beere marka qof walba shabaab u socdaa waa inuu maraa controlkaas dawladda wixii ka horeeya 10 saac oo ururnimo marka controlkii istaagnay darawalkii adeeg wuxuu u tagay askariga wuxuu bixiyay amar ah leerka dhaxal shido marka anagu magacaabo wuxuu injineer leerka dhaxal bulshadeen fiirshay waxa baan gadaalkiiga fadhiya oo kursiga ugu beegan fadhiya taliyihii xisbada ugunji ninkii aniga intaas oo sana xariga ugu hayay oo amiirka ka ahaa meeshaas booliiska ayaaba u fadhiyaba dabcan uu dareemay sababta tahay waan ku naxaan waa laba jeer fiirshay oo dareemay hadii la dhihi lahaa marka kaliya chance oo askari bixi lahaa ah dadku hadageen si aan u ogaado waxay yihiin oo taasna uu xabsiga u aadi lahaa anuna badbaadi lahaa marka fasaxu bax dhaqaaq bundada marka waa bunda yar intaan bundada ka dhamaano garabka ka taabto xureey waa naxday deeseena oo nixna ku yirday waa qof mashiidiga gaari la saaran niyo waa ka naxay marka wuxuu leeyahay waxaan waxay yihiin male baabuur anagu aan wadaa marax ana marsiya iska daldalmay
bis calaa xawa cabsadaan ku aniga maadaama de qof shaba gaari la saarana oo heerkaas ah marka fiiri sifaha askarigu inta soo dago ma dhahayo qofkan deg maxaad u socotaa xagee degan tahay ugunji meeya ma warsanayo waa in daruurku tago gaari dhowey u socdaa toban ka control ee laga bilaabo kuliyadda jaalisiyaad x control tabeelaha ilaa siinka maxaan ku dhahay xaawo cabdi boodboodka afkiisa baar ismaaciil oo midna ka sokeeyo midna baarka ku yaalo controlka oo bundayray intaas ba hal askari oo inta soo istaaga dhaha xagee u socotaa ma jiro mid walba wuxuu leeyahay xaggaas fadhiya leer ka shid waa socona qofkaas marka niyahow gaadiidleedu shaqadaasi qabtaan shaqada kale ay qabtaan waxa waaye maalinta gaariga kursiga markaad furtid fuushid ayuu wuxuu furaa dood ah dacwada nimankaas ay u qaadaan iyo waa intelligence waa sirdoon si uu ogaado qof walba shabaabka meesha ka jooga hadhow ku ribood garayha aad waxa ma ogid gaarigeed xamar ka raacday ilaa ma ugunjiya doodaysay shabaabka ka dhanaad aheed hadhow waxa lagu leeyahay guday adiga haddii xitaa dembiga lagu haysto basiid iska yahay xorriyad ma jirto meeshaan fadhiya ilaa ma xukun baadilkaas u soo baxa meeshaas joogay marka niyo dadkaas la shaqeeya intaas oo team ah ee dawladuna ma arki weyne dabcan waxa waaye xoogaad iska dayaca jira intaas oo control intaas oo taliyo unugoo kala shaqaha joogta intaas oo askariyo waxba iska ogeynaa joogta ma fahmi karo anigu wax isku aragti ka dhigay 10 kaas rugood oo ciidan inuu gaarigaan iska gudbo oo 10 qof oo sidoo noloshii dhoobeyda isa ka muuqan aan ku qanci karin askariga inta hortagaan inuu dhoobay aniga aan socdo kuma qanci karo sababtay tahay de meesha waa bayo si loo noolyahay duruufa ka jirta xamarna de waa caasimada wadanka si loo noolyahay isku muuqaal ma dadkaas sabab marka uu su'aal u gali karin ma fahmi karo waxa kale oo ka eegada meeshaas oo cajiiba aniga waxaan soo ogaaday shabaabka oo meeshaas jooga inay nidaam ahaan ka mid yihiin xilliga ka mid ahaayeen xukunkii dawladda xilliga shaqeynaysa maxaa soo leeyahay shabaabku markii ay dadka haayaan oo ay dacwo qaadayaan ama ay sakawada ka qaadayaan wax baan ku sameeyeen waxay fariisiyaan faylal dheer oo carisho marka dhalo weyn oo de LGO de waaweyn mitir ah u taala waxay ka soo daayaan dacaayaadka oo dawladda ay ku ridinayaan mas'uuliyiinta dawladda madaxweynayaasha siyaasiyiinta dadka nuxurka u leh waxyaabaas ka soo daayaan 6 qof ay soo deejireen oo kaliya waxyaabaha aniga qoysiyay maanta qadiyadeeda soo gaarsiiyay ayay xiban ka taariikhdaas waxay sameynayaan 6 qof oo kaliya madaxweyne 3 madaxweynaha koobaad oo ay maanta dadka u shidayaan oo ridinayaan oo 10 ka magac u baxayaan murtad salami daaqood gaal waxaas ay akhrinayaan madaxweynaha koobaad Xasan Sheekh Maxamed maalintii waxay ku shidayaan in ka badan 100 jeer madaxweynaha kale labaad waa Shariif kan saddexaad waa Cabdullaahi Yuusuf sidaan ognahay hadda markaas nidaamkii Xasan Sheekh ma jirin nidaamkii Shariifna ma jirin kii oo ma jirin ninka Cabdullaahi Yuusuf dhinaca kale markii la aado siyaasiyiinta kale ra'iisul wasaare Abdul Maxamed Gaas madaxweynaha galmudug Puntland Sheekh Shariif Ali Shariif Sakiin oo koonfur galbeeda Cabdirrahmaan Abshukuur 6 mas'uuli ka soo daayaan dhinaca siyaasadda dabcan waa 6 ay necab yihiin oo ay u arkaan inay nidaamkooda ay lid ku yihiin saraakiisha ciidanka ee maanta nool oo ay soo daayaan waxa kamid ah gacmo dulle waxa kamid ah ninka la Tuur Yare waxa kamid ah Cabdulqaadir Shacali Diini wasiirka hore difaaca Soomaaliya iyo saraakiil noocaas ay soo daayaan sida Goobaale iyo ninka la yiraahdo Dhagabadan iyo rakaas waa dhinteen kuwaas aad u soo isticmaalaan way dadka u soo bandhigayaan macnaha markay soo bandhigayaan yani soo bandhigayaan waxay leeyihiin codad bay ka soo bandhigayaan ayagoo qudbayna ayagoo leh maaragtay gaalada nimankan la iska dhiciyo shabaabka Dhagabadan oo leh nimankan jidadka halqab qabto ay soo dhigayaan Tuur Yare oo leh wax ay yihiin male waa basiid marba markii mas'uulka soo dhigaan erey lid ku ah oo ayaga u leeyahay waxay soo dhigayaan adane wixii uu ilaashanay tusaale qofkan shacabku ilaashay Soomaa markuu yiraahdo waxba ma ahanay tilaabaha laga qaado ayagoo wax geystay oo dhibaato ba'an oo kala geystay
mas-uulkaas khudbadiisa waxay daba dhigayaan wax qofka quusina oo uusan ugu dhiiri karin inuu markaas aragtidaas qaato waxay leeyihiin annaga waa muuqanaa meel walba macnaha qaraxyada dadka ay dilayaan dadka qof aysan madaxa ka dilayn soo bandhigaan wax allaala waxa dadka ay soo dilaan askarta shacabka waxa ay dilaan oo dhan dadka madaxa ka dilaan bis soo bandhigaan tusaale meeshan qofka meeshan yaalla madaxa xabada u dhufayaan xabadahaas dhulka jeexjeexayaan maskaxda ku socota meeshaas laana qofkii arkaa waxaan dee haddii wax yaroo marka hore moraal u haystanay waa toos isu dhiibaa marka dadku dadna waa mabda'a meesha geeyey oo ku aragti dadna waa qasban yihiin oo kale waxaad arkay hool dhan oo 100 qof fadhido oo 4 qof 3 qof aysan meelaha fadhiyan ka dhaqaaqayn kuwa kale si u socdaan dhalada hoosta galaya waa jad boo hayaan dadka qaar meesha marka wax ku cad dadka shabaabka u dacwooda 99% waa mabda ma ahan qof iska socda iyo qof cadaalad raadaya uma dacwoodo shabaab waa mabda sabab aniga la igu shili karo in dadkaygiyo la baabi'inaa qarxii soobe masaakiinta isdhex taala qof maskiinahooda ama mutacallim ama arday ama mas'uul la toogana inta la igu soo bandhigo aan u jeclaa karo in musalsalkan la igu soo celceliyo dalada u xiisay kara ma jirto marka dhibaatadaas ay soo bandhigayaan ciidamada kale markay dilayaan ay tooganayaan toogasho sameynayaan waxay soo bandhigayaan markay baabuurta qarxinayaan meel walba waxyaabaan meesha ka wada waxa kamid ah meel walba ay qarax ka sameeyaan waxa taala kaamiro lagu zoom gareeyay lagu diyaariyay oo markii qaraxu kacana duube dadka gurmadiyada sameeyna duube dhaawacyada iyo meydadka duube kaamira taala meeshaas dabcan ama geeday saaran tahay ama guri ku jirta meel un bay saaran tahay hal information oo hal waxyeelo ay geysanayaan oo ribad la'aan ma jirto macnaha waxaad arkaysaa dur gaari maraa la qarxaa kaamira duube nimankaana sidaan ognahay dee satellite ma isticmaalaan hawada waxba kama sameeyaan marka kaamira u taala meeshaas marka macluumaadka soo duubayaan waxay ku leeyihiin u jeedaa saan u galin kaada saan u galin waa saan waay waxyaabas marka dadka ay aad uga cabsi geliyaan aniga marka waxaan fahmi waayay sabab nidaamkii xilliga talinay oo san uga mid ahayn waxyaabaha lidka ku ah oo san wax bandhig uu sameey jirin aniga marka waxba maanta ma qarinayo waxaan isku dhufsaday markii aan arkay dayacii ugu qabsaday cadaaladii iyo garsoorkii amniga xilliga jiray iyo waxa meeshan ka socdaa inta timo isku dhinac xirmaan oo anigu waxaan aaminsanahay way iska wax feegayeen waana sababta kaliftay inaan wixii 2018 iyo 2019 iyo 2020 iyo 2021 ku dhacay inaan maanta ka hadlo oo waxa waaye sanadkii 2003 dhowr toban bil iyo xogaa iga xigto marka taas way balbalaaranta talada aan dawladda u jeedinaa dhowr wajiye leedahay horta aniga madaxweynaha saaka iyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimka maanta xukunka jooga kaliya waxaan rabaa waxba uma sheegayo wax walba ay ogyihiin laakiin waxaan xasuusinaa cadaaladda anigu aan maanta ka cabanaa waa tii shalay markii madaxweynaha iyo hogaamiyaasha ummadeed lagula damiyay diyaaradda dib cirka ayaga 30 kuna door wax kunta wala yani sidaas ay wax walba agtooda raqiis ku ahayeen abniga aan ka cabanaahona waa kuwii ku duqeynayay hotel Maida ma garatay aniga marka maantay ma dhahayo madaxweyne qofkan Dr. Saleebaan oo kale iyo dadka aniga dayacay aniga dacwo uugista wadanka dadka mas'uulka ah dayacay kiiskiga ayaga barqa ka jiftay dabcan Soomaaliya waxa ka jirta qofku inuu gabadh falka sameeyo laakiin aan la xisaabtan aniga hadda waxa iiga muhiimsan 100% qofka intaan oo dhibaato ah sababta u aha midka awoodda dawladeed aan xaq u lahayn inuu xaqeygana dhiciyo qataraha noocaan iyo waxaan oo kale dadka igala daba wareegaanay oo gacan bira ku qabto ya dayac sameey anu ma dhahay Dr. Saleebaan oo kale cadaalad hay sameeyo ma dhahay Xirali Yaxya oo kale hay sameeyo ma dhahay Cabdirasaaq Macalin Yuusuf kale hay sameeyo laakiin waxaan leeyahay mudane madaxweyne dadka meeshan jooga ee garsoorka Soomaaliya maanta boorkooda ku jira oo sababta u ah muwaadinka in maxkamadda gobolka Banaadir dhexdiisa uu iska dhiibo بليس ندافع نوكن
oo noo soo xul oo dikreetadaada iyo awoodahaaga dastuuriga ku siiyey noogu soo saar dad xaqa muwaadinkana ilaaliya ayaguna xushmadooda iyo sharafkooda ilaashada taas waa dhinaca garsoorka dhinaca amniga aniga sabab aan maanta u shaqo tagi karo ama aan u dhihi karo waa dhiiranaa ma jirto kii shalay gudbiyey wixii aniga aan xog ka keenay argixisada laamihii amniga uu dowladnimadu aaminay kuwii 34 recording iyo documentyaashii dacwada gudbiyey ayaa wali amniga mas'uulka ah oo maanta aniga waxaan ku qasban haddaan halkan ku arko qof shabaab oo qof dila inaan meel u ribood gareey karo laakiin shalay jooga waa kaliya waxa kordhi karaa waa inaan anigu qofka shabaabka wax dilaa ama wax dhibaatayha inaan uu soo ribood gareey in markale sii ogaadaan يعني dhalinyaradi ma dhiira karto waxyaabaha amniga wadanka taabana waxyaabaha qofka noloshiisa taabana kuma dhiira karto marka amniga waa kaalinta anaka noogu muhiimsan amniguna iskama dhasho booliska Soomaaliya maanta jooga waxay awoodeen oo ay gaareen hadaf ahaan 1 milyan oo mootay gobolka Banaadir joogta inay rajiis gareeyaan oo ay canshuuraadkooda sugtaan oo muwaadinku inuu lacagtii canshuurta ay baxshay in kale system ay samaysteen laakiin cagsigeeda 17 saldhiga gobolka Banaadir islama wadaagi karto system ahaan qofka dambiilaha oo degmada xukmaysid yani taasoo qofka muwaadinka niyadiisa hoos u dhigay aniga waxa la rabaa tusaale hadii qof oo degmada hodan dambi ka geysto degmada hodan oo dambi ka geysaa uu soo baxaa CD maaha warqad dambi laanta qaada gobolka taga dadgisto qaada magaalada taga passport qaada garoonka ka dhoofaa ama caafimaad wuxuu doonaa isbitaalka dawladda Digfar iyo Madiino taas sax ma nabad dhiiri gelinayso mana aha shaqo u baahan wax tiro badan iyo capacity dawladeed iyo miisaaniyad wax baahan ma 17 qof oo ATA oo saldhigyada la geeyo oo isu furta systemka oo meesha crimes ku ka dhacay maanta inta timaada dhihi karta markii booliisku ay dhahan hebel dambigan galay oo eedan iska leh oo saldhig report garay waxa la rabaa 17 saldhig xafiis walba dawladeed maaragtay wasaaradaha ku shaqada leh waxyaabahaas sida cadaaladda iyo amniga in report u dhaco isbitaalada dawladda report in u dhaco in maaragtay qofka markii saldhigga booliiska laga soo report gareeyo oo la yiraahdo hebel dambigan geystay oo sugan yahay inuusan xafiis dambe dawladeedna tagi karin isbitaal dawladeed tagi karin saldhig dambe tagi karin magariish tagtay garoonka dooli karin inuu ka baqtiyaal rabaa $10 ugu jirta mobilka oo EVC-ga marka in saldhigga hodan oo san report maxaan ku dhahay system oo san la wadaagin CD laakiin 1 milyan ee mootay xamarka shaqaysanaysa ay system ku jiraan macnaha waa in qofka shilinkiisa loo baahan yahay laakiin amnigiisa loo baahnay